السلام عليكم كسو دو قيبتي لباد موضوع aan uga hadlayno waxyaabaha sababa uuraysiga soo daaha ama in lamaanuhu uur heli waayaan qaybtan waxaan uga hadli doonaa xanuunada la daweeyo ee uurka daahiya qalqalka caadada hooyada aan u helin dhiiga si joogto ah waa ku adag tahay uur qaadis qalqalka caadada waxa ay muujinaysaa ogxaanta in qalqal ka jiro marka ogxaanta oo aan diyaar ahayn uur qaadis macquul ma aha dhiigaaga oo yaraada waxa ay ka dhigan tahay ogxaan qarxintaada oo yar kuguna hogaamisa uur helidaada oo yaraata takhtarku waxa uu kugu caawin karaa helida sababaha caado wareerka iyo daweynteeda mar waliba hooyadu waa inay diiradda saartaa cunida cuntada caafimaadka leh samaysaa jirdhis fudud haddii loo baahdana qaadataa dawooyinka dhalmada fududeeya unugyada minka oo meel kale ku samaysma endometriosis kani waa caabuq waqti dheer hayay unugyada taranka ugu dambeynna sababay in unugyada minka ka abuurmaan meel ka baxsan minka waxa ay sababaysaa arrintan inay xirmaan tubooyinka ugxaanta bacriminta iyo uraysigana gabi ahaanba aysan dhicin xaaladan xilliga caadada xanuun daran ayaa jira sidoo kale xanuun aad u daran xilliga isu taga xanuun caloosha qabta kaadida oo soo noqnoqota iyo kafka ama gumaarka oo xanuuna dawada ugu wanaagsan waa qalin lagu sameeyo hooyada loona adeegsado mashiinka laserka laparoscopic surgery lagana saaro unugyada qaldan haddii tubooyinku xiran yihiinna la xaliyo ogxaan qarxinta ciladaha ku yimaada 20 ilaa 40 dhalmo la'aanta dumarka waxaa sababa qalqal ku yimaada ogxaan qarxinta qalqalkaas oo yareeya in ogxaan qaangaar ah oo bacrimi karta la soo saaro halka dumarka qaarna aysanba ogxaanta qarxin oo aysan soo saarin ogxaan qaar 4 bil ayay mar soo saaraan ogxaan waxaa sababi kara xaaladahan isu dheelitirnaan la'aan hormoonada miisaanka oo aad u yar ama aad xad dhaaf u ah almiito aad u badan iyo buuqa ama walwalka burada ogxaanta buradan waxaa sababa qalqal hormoonada ka jira waxay carqaladaysaa ogxaan diyaarinta buro aad u yar ayaa ka samaysanta ogxaanta ovaries taas oo qalada ogxaan soo saarista iyo caadada waxaa kale oo ay keentaa qalqal caadada miisaanka oo kordha findoob iyo timo wajiga ama hareedada ka soo baxa ama shaaribka waxaa lagu xaliyaa raashinka oo la bedelo cunto isu dheelitiran nolosha oo wax laga bedelo iyo qaadashada dawooyin lagu saxo hormoonada sida clomiphene citrate xanuunada tubooyinka dhaawac ama xirmid ku timaada tubooyinka ogxaantu marto ugu dambeynna joojisa safarkii ukumaha iyo shahwada ay ku kulmi lahaayeen si ay bacrimin u dhacdo uurna loo helo waxaa sababa xaaladan badanaa xanuunada lagu kala qaado galmada sexual transmitted diseases infectionka kaadi mareenka ku dhaca urinary tract infection UTI iyo qaliimada lagu sameeyo taranka xaaladan waxa kaliya ah ee lagu xalin karaa qalin loo sameeyo hooyada markii la ogaado cilado ku yimaada ugxaanta tayada ugxaanta iyo tirada ugxaanta hoos ayay u dhacdaa inta u dhaxaysa 30 ilaa 40 jir dumarku marka ay dhalanayaan waxa ay haystaan qiyaastii 1 ilaa 2 milyan ukumahaas hoos ayay u dhacaan ilaa laga gaaro qaangaarka 300 ukun ayay haysataa gabadhu marka ay qaangaar noqoto marka bil waliba waxa ay qarxisaa 1 ukun oo caado u dhamaata sidaana ku sii yaraadaan bil walba ugu dambeyn haddii aysan guursan oo aysan uur qaadin gabadhu qaangaarka kadib 25 sano ayay caadada ku weyn kartaa micnuhu waa ugxaantii ayaa ka dhamaatay oo sanadkiiba 12 ugxaan ayay khasaarisay xaaladan wax xal ah ma laha marka dhalmada waa in la maamulaa oo lagu daraa qorshaha dhow ciladaha qoyaanka kafka dumarka qoyaanka kafka waa dareere u sahlaya shahwada inay si fudud ku dhaafto xubinta una gaarto ugxaanta mararka qaar waxaa dhacda in qoyaanka isbedelo oo uu ka hortago shahwada in ay marto kafka waxaa sabab u ah xaaladan caabuq ku dhacay kafka oo ku daahay waxaa lagu xalin karaa baaris iyo in la siiyo bukaanka dawadii ku habooneed xirmida tubooyinka shahwada ee ragga tubooyinka shahwada qaada iyo kuwa kaydiya oo xirmidan waxaa keeni kara caabuq ku dhaca taranka ragga
sida jabtada, dhaawac ku yimaada xubnaha, caabuq ku dhaca xididada quudiya xaniinyada. xaaladan waxa ay u baahan tahay xeel dheere caafimaad oo qalliin ku sameeya xubnaha xirmay dibna u saxa taranka. la soco qaybta xigta ee aan uga hadli doono sidee isugu diyaarin kartaan uur qaadis ama uur soo degdega.